waftidan oo horkacayay garaad jaamac garaad cali garaad jaamac kana koobna ismada dhaqanka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa maanta si diiran gelinkii dambe loogu soo dhaweeyay waxaana waftidan kamid ahaa garaad Cabdisalaan Xasan ugaas Faarax iyo sidoo kale ugaas Cabdirashiid Xasan Aadan waxa dhamaantood dadka reer Buuhoodle ay kaga hortageen duleedka magaalada iyadoo markii dambana waftidan loo soo galbiyay gudaha magaalada Buuhoodle waftidan oo la geeyay qasriga ay ka tagi doonaan magaalada Buuhoodle ayaa ugu horeyn waxa warbaahinta la hadlay garaad jaamac garaad cali garaad jaamac sugnaa shacab weynaha reer Buuhoodle sidii tolnimada lahayd walaaltinimada lahayd ehelnimada iyo xigtanimada lahayd deegaanka yagii weeye oo dalku waa dalka yagii maadaama iyagu joogeen ay noogu soo dhaweeyeen hawlaanu wax ku leenahay oo hawshayadii yaan u nimid inaanu ehelkii halkan joogay xaajada hayay aanu la tiirino kala qayb gallo dhinaca iyaga ka qabanno tolka iyo xaajayadayadii iyo dhismahay garaadka yagii baanu u nimid أنا كفر أحسن هاي إلى هنا وعينه كبر يناسي وناق يخير كتيره إنه ينوجد مايو وبالله التوفيق. مرني ولما أنا جوا حنكلم إلى ثلاث أريا وحنكلم إلى شري وسوس عني غارق هذا أنتي قرأت كيلو بدلي قرأ عبد السلام قرأت صوفة إلى نقول عن في النصيحة وشيء هالك وجوته وحيالا كلا ده هؤلاء كوس تري ونبضين تيدنا هذا كائن ويتشران مركا هؤلاء سأصعد كيجوها toddobaadadii u dambeeyay waxa magaalada Buuhoodle si xawliya u soo gaarayay waftiyo kala gadisan oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala gadisan haba u badnaadaan ismada dhaqanka iyo kuwaasi oo la filayo inay ka qayb qaataan munaasabada caleemasaarka garaad Cabdirasaaq Maxamed Cismaan Cabdinuur TV-ga Universal magaalada Buuhoodle